بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا وناكسن داود ميل والباد جوجتان. halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka waa 19 bisha Maarso sanadka 2023. Daawada hadii Allah wada loo raali ka noqdo barnaamijkeena qaybtan waxa aynu diirada ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, madaafiic ku dhacaysa gudaha magaalada Somaliland oo madaafiic culus keentay furinta hore ee dagaalka. waxaan idin haynaa sidoo kale go'aanka ka yimid madaxtooyada Hargeysa ee lagu mudeeyay in lagu qabto magaaladan. wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan mar kale daawada soo dhawaada. daawada fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya. mahadsanid. barnaamijka ayaynu gudagalaynaa. Somaliland ayaa hubkii ugu cuslaa waxa ay xalay ku soo daabushay duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, halkaas oo ka socda dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidankooda iyo kuwa deegaanka. waxaana ujeedka Somaliland uu yahay inay la wareegto gacan ku haynta magaaladan. madaafiicda goobta sida BMka, hoobiyaha iyo hub kale oo casri ah ayaa la sheegay in Somaliland ay ku bilowday inay ku duqeyso Laascaanood, iyadoo ujeedka yahay in gabi ahaanba magaalada dhulka la dhigo si looga saaro ciidanka ka dagaalamaya. xog hoose oo aan helay ayaa sheegaysa in madaxtooyada Hargeysa laga soo bixiyay amar buuxa. amarkan ayaa ah in 27 saac gudahood gacanta lagu qabto magaalada Laascaanood, isla markaana ciidanka Somaliland ay markan yihiin weerar aad u culus. sidoo kale madaafiicda ayaa si gaar ah waxa loo beegsanayaa xarumaha taliska u ah ciidanka deegaanka ama SSC iyo sidoo kale guryaha lagu tuhumayo inay degan yihiin isimada SSC, iyadoo oo Somaliland ay aaminsan tahay in haddii ay waxyeelo soo gaarto isimada inay niyad jabi doonaan ciidanka deegaanka ee dagaalka ku jira. dagaalka ayaa ah mid aad u qaraar, iyadoo ilaa xalay saq dhexe ay sidan u dagaalamayeen dhinacyada isku haya magaalada Laascaanood. waxaana dagaalkan oo shalay xoogiisa uu bilowday uu dhan walba dhanka kale ku eedanaya inuu isaga ka dambeeyay weerarka la soo qaaday. Somaliland waxa ay sheegtay in ciidankooda oo ku sugnaa fariisimahoodii muddooyinkii ugu dambeeyay joogeen ay weerar xoogan ku soo qaadeen ciidanka deegaanka, halkaasna ay khasaaro xoogan ku gaarsiiyeen, askar ka dileen, kuwa ka qabteen, gaadiid dagaal sidoo kale gacanta uga dhigeen, dibna u eriyeen. halka kuwa deegaanka iyaguna ay sheegeen in iyaga oo ku sugan fariisimaha ay ka difaacayeen magaalada Laascaanood weerar dhowr jiha ah ay ku soo qaadeen ciidamada Somaliland, hase ahaatee ay qabsadeen 5 gaari oo kuwa dagaalka ah, saraakiil sarsaro Somaliland ka tirsaneed, kuwa ay dileen, kuwa kalena askar maxaabiis ahaan ay u qabteen. sidoo kalena waxay sheegeen inay dib iyaguna u celiyeen. waa labada sheegasho ee labada dhinac ka kala imaanaysa. haddaba sida muuqata marka Somaliland waxay soo gabagabaysay sahankeedii ay waday tan iyo intii magaalada Laascaanood dagaal looga saaray, waxaana hadda wararka soo baxaya ay sheegayaan in ciidanka Somaliland ay iska soo hormariyeen madaafiic aad u culus si ay isaga jabiyaan ama u burburiyaan difaacyada hore ee ciidanka deegaanka. dhanka kale waxa soo baxaya xadgudubyo waaweyn oo dhanka maxaabiista dagaalka ah iyo eedan ay labada dhinac isweydaarsanayaan. waxaa jira eedeymo Somaliland iyo SSC ka imaanaya kadib dagaalkii xooganaa ee shalay ka dhacay Laascaanood ilaa haddana ka socda magaaladan. Somaliland ayaa lagu eedeynayaa inay si bareer u dishay ku dhawaad 10 maxbuus oo ay nolosha ku qabatay, kuwaas oo markii hore iyaga oo nool qaarkood ay warbaahinta soo bandhigtay, haddana sidoo kale la helay muuqaalo kale oo muujinaya iyagoo madaxa laga wada toogtay. waa sida ay sheegayaan dadka deegaanka ama SSC. afayeen u hadlay SSC ayaa sheegay in dhankooda maxaabiistii ay qabteen iyaga oo nool oo bad qaba ay hayaan, xitaa aanay jirin wax jirdilah oo loo geystay, balse waxa uu sheegay in Somaliland aanay ku dhaqmin shuruucda maxaabiista. sidoo kale afayeenka ayaa sheegay in fal walba oo dhaca la iskula xisaabtami doono oo aanay jirin cid looga harin doono arrintan. wuxuuna ku celceliyay in ciidanka SSC aanay sidaas ku niyad jabeen oo ay mar walba iska difaaci doonaan weerarka kaga imaanaya dhanka Somaliland. waa sidoo hadalka u dhigay. annaga waxaan ku taagannahay wadada saxda ah, waxaanu nahay isdifaacayaal. maxaabiis naga maqan oo gacanta ee Somaliland aan ku tabeeno ayaa jiray iyaga oo nool shalay qaarkood warbaahinta la soo bandhigay, laakiin meedadkoodii ayaa markii dambe muuqaal ahaan aynu ku haynaa. haddaba waxaan dunida ogeysiinaynaa in shuruucda maxaabiista dhankeena aanu ka ilaalinay, laakiin dhanka Somaliland ay sameysay xadgudub aad u ballaaran oo u baahan in lagula xisaabtamo, ayuu yiri afayeenkan u hadlay SSC. dhinaca kalena wasaaradda difaaca ee Somaliland ayaa
iyana afayeen u hadlay waxa uu sheegay in ciidanka deegaanka ay dileen maxaabiis ay gacanta ku dhigeen oo u badan askar. sidoo kalena waxa uu sheegay in waxa laascaanood ka dagaalamaya ay yihiin argagixiso soo duushay. waa arrin aad u halis ah in la dilo ama la isku eedeeyo in dhan walba uu dhanka kale maxaabiistii uu ka qabtay dilay, waxayna horseedi doontaa dhacdooyin foolxun oo ka baxsan xeerka dagaalka ama sharciyada dunida u degsatay maxaabiista ee markii la qabtay in lagula dhaqmo. sidoo kale arrinta kale ee hadda ugu weyn ee laga baqanaya ayaa ah in dagaalka ka socda magaalada laascaanood isku rogo mid qabiil, kaas oo halis badan ee keeni doona, weliba ka halis badan dagaalka hadda socda. sababtu waxa ay tahay baraha bulshada waxaa ka soconaya wax u eg kicin beeleed oo labada dhinacba ay adeegsanayaan. sidoo kalena marka la eego ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore ee dagaalka waxa aad uga xoog badan ee dhalinyarada ka dagaalamaysa baraha bulshada, kuwaas oo mararka qaar sameynaya muuqaalo marin habaabina ama keenaya muuqaalo argagax leh oo dhulkale ka dhacay laakiin u ekeysinaya inta cod soo saaraan ee furimaha hore dagaalka mid ka dhacaya, taas oo keenaysa carar xoogan maadaama dhinacyada dagaalamaya qudhoodu ay haystaan telefoonno isla markaan internet ay isticmaalayaan. marka ay telefoonadooda arkaan ama muuqaaladaas arkaan waxay keenayaan iyaguna in aysan wax naxariisa sameynin. waxyaabaha ay ka caroonayaanna waa wax aan ka jirinba meesha ay ka dagaalamayaan. xaaladda magaalada laascaanood ayaa u muuqata mid faraha ka baxday, sidoo kalena aanay marnaba macquul noqon doonin in dhinacyada dagaalamaya ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan sida ay xaaladda usii adkaatay awgeed. khubarada dhanka ammaanka ayaa sidoo kale sheegaya in xitaa aanay hadda macquul ahayn in beesha caalamka ay kala dhex gasho dhinacyada dagaalamaya, xitaa meesha ay ka baxayso dadaalkii lagu doonayay in Addis Ababa lagu wada hadalsiiyo dhinacyadan ishaya. geesta kale waxaa soo badanaya eedeynta Somaliland ee ku aadan in dagaalka magaalada laascaanood ee gobolka Sool ay ka qayb qaadanayaan ciidamo badan oo ka yimid Muqdisho iyo Puntland, sida uu warbaahinta u sheegay sarkaal ka tirsan militariga Somaliland. waxa uu tilmaamay sarkaalkan in maxaabiistii ay qabteen ay ku jiraan askar ka tirsan kuwa Puntland, sidoo kalena kuwa dowladda federaal ka tirsan iyaguna ay gacanta ku hayaan. waa sidoo hadalka u dhigay, isagoo sheegaya in dagaalkan uu yahay mid la isku soo baxaystay oo wax laascaanood ka dagaalamaya aanayba ahayn ciidanka deegaanka ama wax u dhow. marka laga soo tago sheegashada ama hadalka uu sheegayo sarkaalkan Somaliland horey ee dowladda federaalka iyo Puntland iyo xitaa dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxay u beeniyeen wararka ka soo baxaya dhanka Somaliland ee ku saabsanaa in ciidamo kuwooda ah ay ku sugan yihiin magaalada laascaanood oo ay la dagaalamayaan ciidanka Somaliland. hase ahaatee ciidamadii ugu dambeeyay ee gurmad ahaanta ugu soo qulqulayay dhanka magaalada laascaanood waa ciidan u abaabulan qaabbeeleed oo ka kala yimid deegaano kala duwan oo dalka ah, kuwaas oo doonaya in ay difaacaan magaalada laascaanood oo ay kasoo jeedaan. waana sababta keenaysa in loo maleeyo in ciidamada kasoo jeeda SSC ee imaanaya dhanka laascaanood ay yihiin ciidamo gobollo kale oo Soomaaliya ka yimaaday ama dhanka dowlad deegaanka Soomaalida. lama saadaalin karo dagaalka culus ee ka soconaya magaalada laascaanood iyo halka uu ku dambeyn doono. xaaladana mar walba waa isbedeli kartaa oo war cusub ayaa laga maqli karaa dhanka furmaha hore ee dagaalka. daawada aan u duceyno walaalahan Soomaaliyeed. aragtida qaybta hoose commentiga noogu reeb. barnaamijka falanqeynta xogta caalamka aad ka daawaneyseen Markhaati TV qaybtan waa naga intaas. barnaamijkan xiga intaan ku kulmayno nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.